tahay inay maanta halkan inala joogaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane cabdilaahi ibraahim habane iyo wasiirka cusub ee xidhiidhka golayaasha gudoomiyaha jaamacadda adna oo maalin dhaweyd xil kale oo cusub ugu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan gudoomiyaha jaamacadda shifo xildhibaan axmed dirir sheekh maxamed cali geedi oo ka mid ah culimada waaweyn aadna u xiiseeya barnaamijyada waxbarashada gudoomiyaasha kale ee jaamacadaha dadka marti sharafta halkan fadhiya dhammaantiin waanu idin soo dhawaynaynaa waananu idin salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkeenna oo aynu ku furan doono aayado qur'aan kariima waxaan doonayaa inaan idiin dul maro sida uu socon doono insha allahu tacaala labada casho ee soo socda sida aad ku arkaysaan boardka halkan ku dhaskan sanadkan oo ah sanadkii afraad aynu isugu yimaadaan dhammaan jaamacadaha dalkeennu inta yar ee kooban ee 200 mitir ah waxaynu halkudhig u qaadanay 5 qodob oo aynu rajaynayno insha allahu tacaala sanadada soo socda in ay waxbarashadeennu ku tallaabsato qodobka koowaad waxa weeye in ay waxbarashadeennu hesho aqoonsi caalami ah kaasi oo wax badan inaga taraya tayada waxbarashadu iyo aqoonsigu waa kala duwan yihiin marka waxaynu hayno waa in aynu dunida kale u soo bandhigno oo la ogaado waxaynu halkan ku hayno jamhuuriyadda Soomaaliya qodobka labaad waxa weeye sida aad ka warqabtaan waxaynu u baahannahay khayraadka dalkeena inaynu la soo baxno aynu isticmaalno khayraad aad iyo aad fara badan baa dalkeena ku duugan sidaa darteed waxaa loo baahan yahay aqoontii aynu kula soo bixi lahayn khayraadka dalkeena marka waxaa daruuri oo lagama maarmaan waxbarashadeennu in ay ka turjunto waxa weeye khayraadka dalkeena ku jira halkan waxaa inoogu marti noqon doona galabta wasiirka macdanta oo inoo soo jeedin doona insha allahu tacaala waad iman doontaan kasoo wada qayb geli doontaan qodobka saddexaad aynu qaadanay waxa weeye mashaakil fara badan baa runtii bulshadeenna haysta iyo dalkeenna mashaakilka xalkeeda waa in ay waxbarashadu waxa weeye qayb ka qaadato waxbarashadu mashaakilkayna haysta haddii aanay xallin karaynin wax faa'iido aynooma laha qalin iyo buug un baynu sii sidanaynaa gelinka hore gelinka dambena shantada un baynu xambaarsanaanaynaa waxbarashadu waa inay maskaxdeenna wax ka beddesha ilaa iminka waxaan ugu taaglaanay wakhtiga in aynu waxa weeye oo keliya aynu isu imanayno isla garanay iyagoo isla garanay oo 15 casho ka hor sii qaadanay ayayna haddana waxa weeye 12 iyo barkii subaxnimo bilaabayna qodobka waxa weeye afraad waxa weeye haddii waxbarashada qofku marka uu 12 sano iskuul ku jiro ee uu 5 sanadood jaamacadda ku jiro ee uu ka soo qalin jabiyay isagoo oo xambaarsan himilooyin iyo yididoolooyin fara badan ay suuqa waxba uga goyn weydo waxa weeye oo uu lahaan waayo farsamo uu kuba shaqaysto kombiyuutarkii ka baxay kombiyuutarka garan maayo marka uu fiilka yimaado businesskii ka baxay businesskii garan maayo marka uu fiilka yimaado waxa weeye caafimaadka kii ka baxay fiilka marka uu yimaado caafimaadka garan maayo waxa loo baahan yahay in ay suuqa wax uga goynayso ardayga oo waxa weeye uu ku hubaysnaado dhammaan wixii uu skills u baahnaa qodobka ugu dambeeya waxa weeye inaynu cilmi baadhis samayno weeyaan haddaynaan cilmiga wax ku soo kordhin de marti un baynu u ahaanaynaa oo aynu cilmi baadhista carinno oo kordhinno hanti ku bixinno waqtina gelino intaas buu ahaan doonaa halkudhigeenna doorkan waxaynu halkan maanta marti ugu nahay waxa weeye jaamacadaha jamhuuriyadda Somaliland waxay halkan ku soo bandhigeen wixii ay qayb yar oo ka mid ah wixii ay ku hayeen jaamacadahooda hadday qalab tahay hadday cilmi baadhis tahay tiimamka aynu qaadanay iyo halkudhigyada aynu qaadanay dhammaantood galabta iyo barrito insha allahu tacaala ayaynu ka soo jeedin doonaa toobikyo aad iyo aad u qurux badan laga soo jeedin doono oo aan bulshaweynta
waxa way ku dhiirigelinayno inay yimaadaan oo ay ka faa'iidaystaan waxa way presentationada iyo cilmi baadhisyada halkan laga soo jeedin doono waxaan iminka u yeedhayaa professor cabdisalaam yaasiin oo ku hadli doono magaca jaamacadaha tacliintuna sidiisa iyo cilmiguna sidiisaba waa waxa bani aadam ku kala taga ilaahay baa qur-aankiisa inagu yidhi haddaynu marjaca ugu muhiimsan qaadanno hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay siman yihiin kuwa wax garanaya iyo kuwa aan waxba garanay jawaabta haddana qur-aanka ku jirta ilaahay baa inoo sheego ilaahay wuxuu leeyahy yarfacu allahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay dadkiina iimaanka leh waa la ysku wada iyo kuwa cilmiga leh waxay leeyihiin darajaad bay leeyihin weliba darajaad baa leeyihin darajaad macnaheedu markaa waa kala sarraynaya kala sarrayntaasaan markaa u anbabaxaya mar hadduu cilmigu yahay waxaa bani aadamku ifii casharaba hore ugu maraya horta maanta dee waa ogtiinoo dadka maaragtay halkaynu nagu Soomaaliland joogno iyo dadka kale aynu dhaqanka la leenahay islaamka cilmiga aad baynu ugu dambaynaa mar baynu hordoodka ahay oo cilmiganba ay dadka muslimiinta iyo hadday tahay xisaabtaa wax lagu qoraayo ee computerku maanta ku shaqaynaya muslimiin baa ahay dadkii keenay marka dibudhacay ugu dhacay waa laga soo kaban karaa rag waa kii kufay haddana ka cabay Soomaalida iminka halka kan Somaliland intii aynu joognay 26 sannadood aynu jirnay dugsiyada hoose ilaa jaamacadda dhowr iyo 30 ayaynu maraynaa haddaad barbar dhigto ingiriiska xilligiisii 45kii oo dagaalkii laga soo duulay ilaa 60kii ingiriisku intuu tacliinteena ku dhisay intaasay tacliinta ingiriisku 15 sannadood ku sameeyey hadda waa 15 imika inagu waa ka badanay 2000 marka soo qaaday ilaa 17 baynu joognaa intaasaaba 17 sannadood waana intay jaamacadu ay koreen weeyaan marka la isku dhigo ingiriisku dee dowlad guuna oo 800 sannadood 900 sannadood tacliin iyo dowladnimo iyo siyaasad iyo inta badan ku jirteen 15 sannadood waxbarasho tayo leh oo tii ingiriiska la mid ah ayay Somaliland ka dhistay hadday tahay dugsiyo hoose kuwa lagu jiro ilaa kuwii dugsiyadii sare waxay nooga tagtay laba dugsiyo Camuud iyo Hoosaro Camuud iyo Sheekh waxay nooga tagtay dugsiyadii macallimiinta ugu barayay kuwii kale farsamada qaanka ugu barayay tayaanay kaga tagtay martida u nahay jaamacadaha madaxdooda iminkana waxaan u yeedhayaa Dr. Adna Aadan Ismaaciil Dr. Sawdo waxaa maanta sharaf weyn ah inaan mar kale ka soo qayb galo furitaanka xafladan qiimaha iyo qaayaha weyn leh ee lagu daahfurayo lagu bandhigayo tacliinta sare ee dalkayga Jamhuuriyadda Somaliland tacliintu waxa weeyaan midibada adag ee qaran isku taago tacliintu waxa weeyaan waxa dhisa mustaqbalka tacliintu waxa weeyaan waxa adduunka lagula tartamo waxa dhici jirtay hore in dadku wax ku heli jireen ama xoog ama xeelad maanta waxa wax lagu raadsadaa waa aqoontaas waxaan kala dardaarmayaa dhalinyarada inay aad iyo aad u dabagalaan u raadsadaan u tiigsadaan mustaqbalkooda ku dhisaan kaasaad adiguna ku dhismaysaa qarankanna aad wax ugu qabanaysaa ku soo dhawow Sheekh Maxamed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا وزير كتعليمك وزيرك حريرك بضياشة لحظة عن عضها أمامه تشرفك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
walaalayaal ilaahay baa mahadoo dhan iska leh oo wax lagu farxo intaasoo jaamacado iyo dhallinyaro oo isugu timi halkan wax lagu farxo weeye muddo 26 sanadooda ayaynu soo wadnay waxbarasho tiradeennuna aad bay u badatay boqolkiiba 75 waddanka markii la eego waa dhallinyaro weeye oo waxyaabaha lagu farxo masaajidda markaad eegto way buuxaan masaajidadu aad bay u fiicanta waxa lagu farxo weeye dadka inoo yimaadaana runtii way ku farxaan inaynu nahay dad oo muslimiina masaajidadeenu buuxdaan dumarkeena xijaabayin aad baa lagu farxaa hase yeeshee binaadam wuxuu u baahan yahay inuu marku in socdaba inuu isqiimeeyo oo ogaado bal miisaankiisu intuu yahay waxaa laga yaabaa inuu soo haysta inuu yahay 1 kiilo ayaa miisaanka fuulaya 20 kilo noqonayaa boqoladu soo haysta inuu yahay haddaan ka hadla xagga tacliinta 20 sano aynu soo wadnay waxaan isweydiinaynaa maxaynu soo saarnay qofkaynu soo saarnay wuxuu yahay qof ilaahay ka cabsoonaya inuu yahay qof waalidkuu samafalaya inuu yahay qof xuquuqda islaamka garanaya inuu yahay qof xuquuqda waddanka garanaya inuu yahay qof shaqo fiican garanaya inuu yahay wuxuu ku shaqaysta aqoon iyo akhlaaq iyo diin intaba la leeyahay waa su-aal ayaynu isweydiinayna su-aashaanu ka jawaabi kari maayo laakiin waxaan ka jawaabi karaa markaynu miisaanka fuulno laakiin dadku waxay sheegaan waxyaabaha soo baxaya waxaa ka mid ah 26 sano dadkiinu soo saarnay haddii aad ka soo qaadato mithaalka iskuullada hoose dhexe sare khasaaro badan baa inagu dhacay waxaa inagu dhacay waxa weeye qofku waxaa loo baahaya ardaygu inuu caqligan ka shaqaysa ilaahay baa subxaana wa tacaala inuu banaystay caqligan walaqad karramnaa bani aadama وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا إلهنا سبحانه وتعالى إنه كل يرين ونقف فضلين مخلوقات كيسي كلا وحاول نقف فضلين مسكح الأول السيئ يعني لو بقرآن كان كنت على البيان يفكرين يعني العقل الاستعمال عقل أصير شرابين لكون وقتطاس وحدق عن الغضين إن امتحانك لك الشغل امتحانك لك الشغل فقط إلا مراحل ربي أيام لنا وقت وحكوها بريئة يا وابن غنق يا وزير إنه كيسون استعمالي وأهم في هاي القشة سنة وحدك ويا شيخ وهم سيحي إمك وزارة وحبرشة الدوان وحي قبط ترتن ay 5 jaamacadood u qabatay 5 jaamacadood waxay hayeen jaamacadda Camuud Hargeysa Burco Laascaanood iyo jaamacadda Badar waxa ay ku tartamayeen waxa sida hal abuurka ganacsi loo sameeyo ardayda ku jirta kulliyadda ganacsiga tababar fara badan ayaanu halkan ugu sameynay markii aanu aragnay ardaydu jaamacadahaas ay ku jiraan inaanay runtii hubkii loo baahnaa inay carruurtaasi hal abuur ganacsi ay ku sameeyaan in aanay maaragtay si wanaagsan loogu hubay tartannadii aanu u samaynay iyo tareeninadii iyo tababarradii aanu u samaynay kadib ayaanu ardaydii tartan siinay waxaanu la siinayey waxa way abaalmarin $5,000 ah kooxda guuleysata koox baa ku guuleysatay waxa inaga caawinayay bangiga la yiraahdo Premier Bank oo bangi cusub ah waxaan doonayaa inaan u yeedhay imka Mubaarak Aar oo tababarka gacanta ku hayay waxa way kooxdii ku guuleysatayna
abaalmarinteedii iminka aynu wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wasiirada kale ay guddoonsiiyaan bal tartankaas iyo taariikhdiisa iyo siduu u dhacay waxa weeye waxaynu ku soo dhaweynayaa mubaarak aar dhammaan madaxda wasiirada martisharafka aqoonyahanka guddiyaasha jaamacaadka iyo wasaaradda waxbarashada maamulkeeda iyo runtii kasoo qaybgalaashada dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum runtii ugu horeyn horta waxaa mahadnaqayaa Allah subxaanahu wa tacaala inta ka bacdi barnaamijkan wuxuu runtii dhacay bishii waa barnaamij tartan ahaa u dhexeeyey 5 jaamacadood jaamacadda Camuud jaamacadda Hargeysa jaamacadda Burco jaamacadda Lugaad iyo jaamacadda Beledweyne waxay ku tartamayeen fikrad ganacsi oo cidda fikrad ganacsi oo shaqaynaysa keenta waxa balan qaaday inay maalgelinayaan laga maalgelin aan soo gelin lahayn oo bilaash ah bangiga caalamiga Premier Bank runtii tartankaa waa la qabanay tartankan waxaa la socday tababar oo ardayda runtii 3 isho oo joogto ah 8 ilaa 10 galabnimo ayaa lagu tababaray sida ganacsiga loo abuuro oo qaar badan oo ka mid ah runtii ay dareemeen in tababarkaas isbedel badan uu ku sameeyey intaa ka bacdi barnaamijku wuxuu toos uga soconayay isagoo toos ah TV-ga qaranka oo habeen kasta bishii Ramadaan uu soo geli jiray iyadoo bulshadana aan ugu talagalnay tartamayaasha runtii su'aalo la weydiinayay su'aalaha la weydiinayo jawaabtoodana aanu bixinaynay si ay uga faa'iidaystaan dadka daawanaya bulshada Soomaaliland oo u bartaan sida ganacsiga loo abuuro iyo qaababka runtii loo habeeyo magaa runtii tartankaas waa dhamaaday tartankaasi runtii dhammaan ka qaybgalayaashu way dadaaleen ma oran karo waa la kala bediyey sanaacada sababtu waxay tahay dowlad kasta oo runtii waxay hayeen top ay hayeen laakiinse waxaan oran karaa waxaa mudnaantii koowaad la siiyey oo runtii lacagtii la siiyey inay qaataan oy maalgelin ku samaystaan ardaydii ka socotay jaamacadda Camuud laakiinse dhammaan ardaydaasi arday top ay wada hayeen aad u dhiso tababarkaasna wax badan lagu dhiso magaa runtii maanta waxaan rabnaa horta lacagta in la guddoonsiiyo oo lacagta aan la siino ardayda ku guulaysta si gaar ah runtii waxaan ugu mahadnaqayaa Premier Bank sababtoo waa bankiga keliya runtii qaatay inuu lacag bilaash ah oo la soo celinay uu arday siiyo waxaan qabaa runtii inay tahay istad aad u wanaagsan oo runtii tilmaamaysa bankigu inuu qaatay mas'uuliyaddii ka saarnay horumarka dalka waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada wasiirka waxbarashada aad baan ugu mahadnaqayaa sababtu waxay tahay dhiirigelin la'aantiisa haddaanu la dhiirigelin haddaanu la garab istaagin hawshaa runtii bay qabsoontay waxaa isla runtii si gaar ugu mahadnaqaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada oo isagu ahaa runtii qofkii udubdhaxaadka u ahaa barnaamijka oo jaamacadka xiriirkoodii waxaasoo dhan sameeyey barnaamijkana runtii qaatay fulintiisa qaatay oo runtii muxuu ahay aad wax badan nagala qabtay isaga la'aantiina runtii way arkaan lahayd barnaamijkaasi inuu fulo waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa TV-ga qaranka Soomaaliland waad ogtihiin TV-ga qaranka Soomaaliland TV-yada qaranka lacago badan bay qaataan airtime ay ku qaataan balse TV-ga qaranku wuxuu qaatay inuu runtii barnaamijka si toos ummadda ugu sii daayo iyadoo haba yaraato wax lacaga aanu xisaabinayn magaa si gaar ah ugu mahadnaqaynaa maareeya TV-ga qaranka qadar cabdulla runtii arrintaa runtii aad ugu dadaalay si fiican u qabtay iyo wasiirka warfaafinta baan intuu waan u mahadnaqaynaa waxaa kaloo runtii aan ugu mahadnaqaynaa si gaar ugu mahadnaqaynaa dhammaan dadkii hirgeliya barnaamijka oo runtii muxuu ahay kow ka ahaa dhalinyartii duugayay ee sida volunteerska ah iyo ayagoo volunteers ah oo lacag u qaadanayn runtii barnaamijkaa duubay cabdiraxmaan aad baan ugu mahadnaqaynaa raggii kale la shaqeeyey axmed iyo ragga gurbadaasoo dhan aad baan ugu mahadnaqaynaa jafar oo ahaa ninka barnaamijka runtii lahaa siideyntiisa iyo abaabulkiisana oo ka tirsan TV-ga qaranka waanu mahadnaqaynaa ugu dambe waxaan u mahadnaqaynaa madaxtooyada Soomaaliland sababtu waxay tahay madaxtooyadu waxay damaanad qaaday ardayga ku guulaysta maaha inta kale soo hadhay inay siiyaan xaqushaa ay ku ciidaan ayay wasaaradda madaxtooyada damaanad qaaday weliba si gaar ah ku damaanad wasiirka madaxtooyadu Maxamuud Xaashi lacagta waa u bixiyay ardaydina runtii maanta ayaa la siinayaa iyagana runtii oo loogu talagalay in la siiyo dhammaan xaqal ciidkii lacagtii loogu talagalay iyaguna runtii maxay ku shaqeeyaan ugu dambeyntii runtii waxaan runtii rabaa hadda inaan isku yeedhno muxuu ahaayey maareeya ku-xigeenka muxuu ahaay Premier Bank si iyo wasiirka waxbarashada oo runtii marka hore aan Premier Bank inay soo dhawaadaan kelmad ay jeediyaan kadibna wasiirkan ku soo dhaweesha la siiyo ardayda lacagta halkaa lagu guddoonsiiyo dhammaantiin waa idin mahadnaqayaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasaaradda
iyo madaxda kale ee qaranka ee kasoo qayb gashay xafladda guud ahaan kasoo qaybgalayaasha waa mahadsantihiin waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kole premier bank waa banki ku cusub saaxadda adeegyada maalgelineed ee dalka hadda waxaa jira muddo sanad ka yar waxaa albaabada loo furay 25kii May sanadka 2017 adeegyo runtii bulshada Somaliland ay u baahnayd intii soo kordhiyay bangiga ujeedooyinka loo aasaasay waxa kow ka ah inuu guud ahaan bulshada Somaliland uu ku xidho caalamka inuu bixiyo adeegyo maalgelineed oo qayb ka qaata horumarka dhaqaale dalka iyo sidoo kale in tiknoolajiyadda casriga ah uu ku soo naqilo Somaliland barnaamijyada bangigu inta soo kordhiyey waxaa ka mid oo si gaara ardayda iyo bahda waxbarashada si gaara ay u danaynayaan ama uga faa'iidaysanayaan waxaa ka mid ah in maanta waxbarashadu waa virtual wax badan jaamacaadka iyo waxbarashada waxaa lagaga qayb qaataa online ama lagu dhigtaaba bangigu runtii wuxuu suurtageliyey in adeega mastercardka oo ardaydu u suuro gelinaya inay waxbarasho dabadeed ama distance learning ku sameeyaan in researcheska ay sameynayaan ay u baahan yihiin ay kaga iibsan karaan online inuu suuro geliyo waxaa kaloo jirta ardayda laftarkooda iminka dibadda u baxay oo kale markii hore ardayda xawaaladaha wax loogu diri jiray inta waxaan suurto gelinay inuu ardayga waddanka dibaddiisa tegaya uu kaarhka ka qaato hargeysa ka qaato dibadda tago waalidkiisii xawaaladda ugu dirayana iminka ugu dhiboosid gareeyo una akawnkiisii hargeysa isagoo premier card isticmaalaya uu halka kagala bixi karo isagoo dibadda jooga runtii hadal badan ma jeclina idhaahdo barnaamijkan ay hadda halkan u nimid oo bankiguna uu maalgeliyey ujeeddadiisu waxay ahayd dhiirigelinta iyo horumarinta ardayda iyo guud ahaan tacliinta waxaan u mahadnaqi lahaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay barnaamijka ciddii soo abaabushay ciddii fikirka lahayd oo ugu horeeyo mubaarak ibraahim aar iyo wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaan cid kasta oo kale markaa barnaamijka qayb dhexaadla ka qaadatay waa u mahadnaqi faa'iidaysan doontaan insha allahu tacaala imika waxaan u yeelayaa wasiir ku-xigeenka dhalinyarta iyo isboortiga masar cabdirashiid oo isaguna insha allahu kelmad halkan ka qalin jabiyey form 4ka ka qalin jabiyey jaamacadaha gelaya si ay bal u doortaan kolba jaamacadda sida ay u kala tayo badan yihiin jaamacadaha ay u kala doortaan waxaana rajaynayaa jaamacaduhuna inaynay sanadkii hore wixii ay soo bandhigeen wax ka duwan oo gaar ahaan xagga tayada jaamacadaha ah inay soo bandhigaan ayaan rajaynayaa bahda wasaaradda waxbarashadana dadaalkaa fara badan ay galeen oo wasiirku ugu horeeyo waan ku hambalyaynayaa agaasinka tacliinta sare oo isaguna si gaar ah hawshan wasiirku ugu igmadayna waxaan leeyahay hawl weyn ayaad qabateen aad iyo aad baad u mahadsantihiin iminka waxaan u yeelayaa wasiirka cusub ee xidhiidhka golayaasha haddana runta la isku sheego wax uma hagaagaan waxa aan kale aan maanta ku faraxsanahay waxa weeye in maanta la bixinayo hadiyado lagu dhiirigelinayo ciidamada wax ka soo bartay ama labadii bartay iyo kuwa wax keenay inkastoo maanta dowladdan axmed maxamed siirooyin ku cusubahay laakiin ila cusbadee maxaa kale Somaliland ee dowladdu waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay dad tayo leh jaamacado tayo leh cilmi tayo leh inuu ka soo baxo waxaa loo baahan yahay ardaygu inuu isku tashado uu naftiisa iyo mustaqbalkiisa u fikiro iyo dadkiisa iyo dalkiisa hadduu maanta waxbarto isagay u dhintay hadduuse uu noqoto sidii la sheegayay intee maarata whatsappka lagu shaqeeyo faa'iido ay u keenaysaa ma jirta khasaare uu hadhow farta dhana ka qaadi u loo keenaysaa
guddiga jaamacadaha waxaan u sheegayaa in ay taasi hirgeliyaan bandhigga maanta quruxda badan oo ku baadaya hadalka qadimaayo taasi kaga leeyahay waa mahadsantihiin dhammaantiin inta meesha joogta oo ay marwa aad ay maxaan ku dhahday inuu kusii dhiirigelinayo hooyadii ay tahay maxaan ku dhahay dhammaanteen jecel in somalilan haba u socoto ay jeceshahay in ay mustaqbalkeedii tiyaag soo jirtayba ay iyadoo ku iflaysato in ay dadkeega iyo dalkeegaba wax ugu tagto iyadoo waxaa leedahay hadnoo dalkeenu leedahay haba hormariyo abaarahana ilaahay hanaga saaro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu إن شاء الله آد بوشليس يهي وحن رجينا إن دمانتين أتصو قيب كشان عرودي أفراد جامعة جمهورية الصومالي لان وإذن سود وينسا دمان قدومياش جامعة آد بيدين سود وينيان عرودي أفراد جامعة جمهورية الصومالي لان وحا سر رسمية كفر الدونا إمنك وزيرك وزارة وحبرشدة هي تعليم تسرع مدن عبد الله إبراهيم حباني سودو maanta waxaa dalka ka samaysan ugu yaraan 1400 oo dugsi baa ka furan marka jaamacadaha laga tago intaa xukuumaddu iska daa maaragtay muxuu ahay waxay karta kale dayactirka labada iskuule ugu waaweyn faalax umaan miisaaniyadda dayactirka ugu jirtaa ma dayactiri karto faalax umaan oo keliya waa dugsigii 6 la dhisa weeyaan saa darteed waxaynu abaabuli doonnaa inaynu barnaamij iyo hindisada nimaadno waxbarashada kor loogu qaadayo oo ah sanduuqa horumarinta waxbarashada in la aasaaso xeer loo sameeyo boodhna loo sameeyo xukuumaddu waxay heshaa halkaa ku shubto hay-adaha ajaanibkeena caawiya ay ku shubaan dadka ilaahay maalku dhiibay naga dhashayna ay ku shubaan sanduuqa aynu ku horumarino siiba waxbarashada reer guuraaga aad iyo aad inooga hoosaysa maxaa yeelay macallinkii wax garanaya halkan u soo galay magaaladii u soo manfac doontay tuuladii cidima joogto carruurta tuulada joogtaa fasalka afraad ma dhaafaan hadday 8 gaaraanna waa 5 amba waa 3 amba waa 2 halka waxaad ka arkaysaa macallimiintii ku filnayd ee wax u dhigi lahayd inaanay joogin halkaa arrimahaas wayna hor yaallaan arrimaha kale ayna hor yaallaan wax weeye aqoontu wayna wax soo kordhisaa cilmi baaristu hareerihiin inay taallaa sheekhaa sheegay dee qaadka cilmi baarista laga samayn karaa hadda qaada ku luma see loo isticmaalaa saynu u beddeli karnaa maxaynu ku beddelan karnaa innagu maxaynu kaga hortegi karnaa wacyigelin iyo dhinaca kaleba in laga fikiro oo la baadho weeyaan dhinaca kale qolyihii inay yidhahdo waxaan barannaa besaliskaan barannaa dee halkanay taallaa cilmi baadhistiina ya imise arday ayaa saaka kimis ku soo qureecday imisaa roodhis ku soo qureecday imisaa soo qureecan livelihoodka dadkeena si simbala oo fudud baa loo baadhi karaa cilmi baadhistu ma aha wax waaweyn oo la doondoonaye aqoontu wax agtaaday taabtaannaa halkay taallaa qolyaha caafimaadka ku jira daaweyna way samayn karaan outreach cilmi baadhisna way samayn karaan marka waxa weeye adduunka inaynu wax la nimaadno ayaa loo baahan yahay aqoontuna waa inay wax tarto ay wax soo kordhiso waxaan u baahan nahay inaynu dadaalkeenna iyo awooddeenna isku geyno inaynu mudnaanta koowaad sayno waxbarashada tiirka aasaasiga ee nolosha ijtimaaciga lagu beddeli karaa waa waxbarashada caafimaadkuna dee qofan caafimaad qabin waxba baran maaye isla waa tiir aasaasi weeyaan maalintii dhaweyn NDP2 aanu ka hadlaynay wasaaradda qorshaynta soo bandhigtay lagama hadal social sector cid soo qaatana ma jiro
environmentka waa laga hadlay amniga waa laga hadlay social sectorka oo ah ka ugu quwad weyn ee aasaaska nolosha bulshada wax lagaga bedeli karo la soo qaaday haddaynan mudnaansi waxbarashada ka bixi mayno guuldarro ilaahay guusha hayna siiyo garashada haynoo siyaadiyo aqoonteennana aynu ka dhigno cilmi naafaca oo macno u yeedha dadkeenna iyo dunyadeennaba ugu dambayntii nimankaa la jahaysada ku helay ee tartanka ku guulaystay hase dhegaysanno arrinkaasi 5,000 lacag badan maaha laakiin waa lacag wax lagu bilaabi karo weeye hadday ijtihaadka ay sameeyeen si ficlan uga dhabeeyaan ragga adduunka haystaa in kalay bixin doonaan iyagoo gargaar ka sii weyn bay heli doonaan taa maskaxda ku hayaan wixii maanta laga arko ayay noqon doontaa waxtarka ka yimaada iyo tartanka aynuu samayno ubadkeennu iyagaa guusha maanta helay ayay ku xidhnaan doontaa hadday 5 inana halkan joogay midba ku qaato aqalkooga la tago barnaamijkaas halkaasuu ku dhimanaya hadday sii wadaan barnaamijkaasuu sii soconaya guusha iyo guuldarrada barnaamijkaasi idinku inagu xidhan yahay bismillaahi raxmaan raxiim maanta waan joogno goobta lagu soo bandhigayo carwada jaamacadaha haddaanu nahay jaamacadda Rift Valley aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan rajaynayaa waxa weeyaan inay faa'iido u noqon doonto ardayda ka baxday sekondariyada sanadkan si ay u ogaadaan jaamacadaha iyo tayadooda iyo waxay hayaan iyo waxay dhigayaan marka annagu waxaan soo bandhignay dhammaan wixii aan dhigaynay waxa weeyaan aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno carwada bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxa weeyaan waa hoolka weyn ee Guuleed Hotel oo lagu soo bandhigay jaamacadaha dalku ay ku soo bandhigeen qolob walba waxqabadkeedii goobtan waxa weeye waa jaamacaddii Alfa oo ku soo bandhigtay maanta qalab casri ah oo ah dhinaca caafimaadka waxa weeye waxay baadhayaan maxaan dhahdaa dhiiggii qaybihiisii kala duwanaa waxay baadhayaan maxaan dhahdaa blood pressure-kii waxay baadhayaan musantii qofkii sonkor qaba waxa weeye maanta markaa qalabkani waxa weeye waa qalabkay ardaydu ku shaqaynaysay qolada shaqaynaysa waa ardaydii yaa ay shaqaynaysa sidoo aragtaan gudoomiye carwadan masaaka ka qabsatay hotel Guuleed wallahi waxa weeye aad iyo aad bay wanaagsan tahay waxana weeyaan horumarka dalku gaadhay iyo horumarka jaamacaduhu gaadheen gudoomiyaha New Generation Cabdiwaasac Maxamed Yuusuf ayaa waxaan jecelahay kelmadiisa bilaa weydiinay dareenkiisa ku aadan carwada ballaaran saaka ka furtay hotel Guuleed iyo jaamacadaha waxyaabaha ku soo bandhigeen bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wad-diin maanta waa maalin aad u ballaaran jaamacadaha dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland kuwii gobolada kuwii dhammaan caasimadda Hargeysa ayaa isugu yimiday jaamacad walba wixii ay haysay ayay soo bandhigtay markaa jaamacadda New Generation University sanadkii hore aad baan uga qayb qaadanay oo waxaanu ahayn jaamacaddii koowaad wax aad u qurux badan soo bandhigtay sanadkanna waa innagaa soo bandhignay ardaydii caafimaadku dhiiggii bay baadhayaan habitaydkii wax walba oo maataqaanaa la baadho oo caafimaad ku saabsan bay baadhayaan kuliyadaha jaamacaddu ay ka kooban tahay ayaa lagu soo wada bandhigay halkan ardaydu xiisaynayso dhammaan ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland meel walbay joogaan waxaan leeyahay waa fursad kaalaya oo ka faa'iideysta waliba jaamacadda New Generation University waxay haysaa registration fee inuu free u yahay haddii aad ka faa'iideysanaysan waqti xaadirkan carwada ay socoto bisha labadeeda maanta iyo berito insha Allah aad baa wasad adaa mudan Bedel International University oo ah halkan aynu joogno waxay ka mid tahay jaamacadaha dalka ugu horeeya ama barnaamijka akademiga hogaaminaya ka jaamacad ahaan si fiican baanu maanta ugu soo diyaar garownay ka qayb qaadashada macdarka jaamacadaha barnaamijka akademiga iyo fakultiyada ay jaamacaddu bixisana halkan baan soo bandhignay manhajka iyo systemka waxbarasho ee jaamacadda Bedel waxa weeyaan waxa loo develop gareeyay ama loo horumariyay hanaan aad sareeya si fiican waan uga qayb qaadanay kuliyadaha haddaynu wax ka sheegno waxa ka mid ah jaamacaddu bixiso kuliyadda shareecada islaamka
Islamic Banking and Economics, Civil Engineering, Business Administration, Islamic Economics and Political Science, Nutrition oo sayniska ka mid ah iyo postgraduate-da oo ay ka mid yihiin ama diblomooyinka sare Islamic Banking iyo Leadership. Bismillahir Rahmanir Rahim. Magacaygu waa Saleebaan Meegaa Gubsiye waxaan ka mid ahay saraakiisha jaamacadda waxaanu halkan ku soo bandhignay qaybihii jaamacadda kulley bandhig weyn maaha waa tiro yar oo ay ka mid tahay architecture-ka dhismayaasha ama qaabka ay architecture-ku sameeyeen iyo caafimaadkaba marka waxaanu leenahay jaamacadda Armas waxaanu halkan ku haynaa anagu tiro ahaan meegne tayaanu soo saarnaa marka insha Allah waa midhahaanu soo saarnaa waxay noqon doonaan kuwa dadka iyo dalka intaba anfaca haddii laga dayrinayay jaamacadaha oo lahaa quality ma laha annagu xooga waxaanu saarnaa quality-ga midhahana waxaanu ka garanaa suuqa ama wacyiga jira ayaa dib noogu soo jaamacadda Barso waxay ka mid tahay jaamacadaha magaalada Hargeysa ka jira ee ugu caansan xaqiiqatan wax barasho tayo leh bixisa sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay oo dhawaan soo kordhisay cusbitaal waxa weeyaan qayb weyn ka qaadanaya horumarinta tacliinta waxaad moodaa dabcan tacliinteenu inay u badan tahay waxa weeyaan theory laakiin saanaku waxaanu dabcan haynaa tacliin u badan practical la socoto theory aad u xoogani